Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijkeennii Sirta Nolosha. Barnaamijkeennan waxaynu kusoo qaadan doonaa islamarkaasina aynu ku lafaguri doonaa sida ugu habboon ee uu qofka bini'aadamka ahi ku heli karo guusha, islamarkaasina uu noloshiisa u waajihi karo ugana dhigi karo nolol markaasi ay u dhammaystiran yihiin wax kastoo uu baahdo. Sidoo kale waxaynu barnaamijkeena aynu kusoo qaadan doonaa qaar ka mid a dadka dunida ku nool ee nolosha ka gaadhay heerka ugu sareysa, hadday tahay dhinaca waxbarashada iyo dhinaca shaqooyinkaba. Guushu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay wada raadinayaan guud ahaan basharka ku nool dunida oo dhan, caddaan iyo madowba. Haddaba waxaa jira farqi u dhexeeya sida ugu habboon ay dadku ay u raadinayaan guusha, waxaana kala jira dariiqyo badan oo ay u maraan helitaanka guusha. Waxaan barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa nin jeclaa inuu waxbarto, islamarkaasina markii hore kala kulmay caqabado adag waxbarashada, balse markii dambe noqday qofka markaasi ugu cilmiga badan dhulkii markaasi uu joogay. Ninkani ayaa waxa uu noolaa waqtigii taabiciinta, waxa uuna markaasi ahaa nin jecel inuu barto barashada cilmiga naxwaha. Waxa uuna markaasi ahaa nin markaasi jecel inuu barto cilmiga naxwaha, balse waa uu ku adkaaday, waxa uuna kala kulmay adayg iyo weliba sucuubaad fara badan. Balse maalinkii dambe ayaa waxa uu galay safar, islamarkaasina waxa uu bilaabay inuu u safro dhulka baadiyaha ah. Waxa uu markaasi soo maray meel hoga, islamarkaasina ay ku wareegsan tahay dundun. Markaasi waxa dunduntaasi agteeda marmaraysay quraanjeer yar. Waxa aanay markaasi rabtay inay gasho godka dunduntaasi ku hoos yaalla, balse waxa ay doonaysay inay la gasho xasharaad yaryar. Xasharaadkaasi oo markaasi ay rabtay inay quudato inta ay godkaasi ay ku jirto, balse quraanjada ayaa ah wax shayga ugu itaalka daran, balse waxa ay markaasi ay lahayd awood markaasi macnawiya oo qarsoon. Ninkani ayaa waxa uu markaasi aad u eegayay quraanjadaasi iyo weliba waxyaabaha ay markaasi rabto inay godka la gasho. Kadib waxa ay bilowday inay godkii ay la gasho waxa ay doonaysay ee markaasi ay rabtay inay cunto, balse mar walba waa ay soo dhacdaa, islamarkaasina waxa ay bilowdaa in ay markaasi ay la geli kari weydo. Aakhritaankii waxa ay bilowday inay la gasho godka wixii ay markaasi u baahnayd. Ninkii ayaa waxa uu yidhi, ma waxaan ka liitaa quraanjadaasi la gelayso godka waxaas yaryar ee ay rabto inay cunto? Waa inaan bartaa cilmiga naxwaha. Islamarkaasina waxa uu halkaasi uu kala kulmay daraasad iyo weliba wax uu iftiimiyey sidii uu doonayay inuu barto cilmigaasi. Waxa uuna markaasi bilaabay inuu barto barashada cilmiga naxwaha, balse waxa uu noqday markii dambe qofka ugu yaqaana cilmigaasi dhulkii uu ku noolaa. Islamarkaasina waxa uu markaasi u suurto gashay inuu helo culumtii uu u baahnaa inuu barto. Qaybta labaad ee aan kusoo qaadan doono barnaamijkeena ayaa waxa uu yahay nin ayaa waxa uu ahaa nin baalashlaa, islamarkaasina waxa uu baalashayn jiray amaba se uu dhalaalin jiray kabaha. Waxa uuna ka bilaabay shaqadiisa halkaasi, balse waxa uu ka soo maray caqabado aad u adag. Balse markii dambe waxa uu bilaabay in uu markaasi ay waqti u dhiibo, maadaama ay Soomaalidu tidhaahdo wadada yari waxay kugu ridaa wadada weyn. Markaasi waxa uu bilaabay in uu markii uu baalashkaasi uu muddo ka shaqaynayay, uu markii dambe uu u wareego inuu noqdo karyoonle amaba se xamaalle. Kadib waxa uu xamaali jiray alaabta yaryar ee markaasi bagaashka ee dukaamadu ay u baahan. Kadib markii dambe waxa uu bilaabay inuu furto dukaan yar, balse waxa uu ku bilaabay waxyaabo yaryar oo aad u kooban. Markii dambe waxa uu bilaabay inuu dukaankiisaasi uu haysto, islamarkaasina uu markaasi ku qanco waxyaabahaasi uu alla siiyey inuu markaasi xooggiisa iyo muruqiisa uu maalo. Kadib wuxuu sidaasi ahaadoba waxa uu bilaabay inuu shaqooyin badan uu helo, islamarkaasina shaqo kastaaba ay shaqo u dhiibto. berigii dambe ayaa markii dambe ninkii waxa uu noqday nin isagu markaasi isku filan, isla markaasina
maareyn kara noloshiisa. Aakhritaankii waxa uu isku bedelay nin ganacsada ah oo markaasi dunida wax badan kusoo kordhiyey. Taasina waxa uu suurto gelisay labadaasi nin ayaan kusoo qaadanay barnaamijkeena in ay markaasi ay ka midho dhaliyaan hiigsigoodii ay u baahnaayeen iyo weliba waxbarashadii markaasi uu midna u jeclaa inuu markaasi barto waxa uu ka midho dhaliyey, isla markaasina waxa uu noqday qofka ugu cilmiga badan dhulkaasi uu ku nool yahay. Ninkan kalena waxa uu ahaa nin baalashlaa, balse waxa uu markii dambe isku bedelay taajir markaasi dhulka oo dhan laga yaqaano, isla markaasina wax fara badan kusoo kordhiyey dunida. Adigu waxa aad heli kartaa isla markaasina aad ka faa'iideysan kartaa waqtigaaga haddiiba ay ku haysato caqabado fara badan iyo weliba aad maareyn kari weydo noloshaada. Ha niyad jabin, balse waa inaad markaasi bilowdaa in aad ka faa'iideysato waqtigaaga, waayo dunidu waxa ay markaasi bixisaa wejiyo fara badan. Qofkuna waxa uu markaasi kaga dabaalan karaa inuu markaasi muujiyo samir iyo dhabar adayg. Waa tahay daawadayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena Sirta Nolosha. Barnaamijka waxaa idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki, waxaanad kala socotaan bartaan YouTube-ka ku leeyahay ee isla Maxamed Turki Channel. Intayn barnaamijkan mid la mida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Ha ilaawin inaad tidhaahdo like ama subscribe.